بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن dadkana daawanayo ku soo dhawaada warka caalamka ee TV-ga Somali Cable oo hadahayo kale idin ka yimaada studio TV-ga magaalada Nairobi. qodobada wararkeena ugu door korona waxa kamid ah kulankii toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta la isugu yimid magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlay arrimaha dhaqaalaha dibadda iyo sidoo kale ammaanka guud ee dalka Soomaaliya. gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland waxa uu walaac xoog leh ka muujiyay shubanbiyada ka dilaacay deegaanada Somaliland inuu saameyn ku yeesho arrimaha doorashooyinka ee Somaliland. ilaa iyo 4 tuulo oo hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa la qabasiyay dab kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaal beeleed u dhaxeeya dad halkaasi wada degaan. shirkii golaha wasiirada ee galmudugna markii ugu horeysay waxaa shir gudoominayay madaxweynaha cusub ee dhawaan la caleemo saaray Axmed Ducaale Geelle Xaaf kaasi oo looga hadlay dardargelinta howlaha wasiirada iyo sidoo kale arrimaha abaaraha. maalinta xornimada ee dalka Kenya ayaa looga dabaaldegay guud ahaanba wadanka Kenya. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable u diyaar garooba isaga oo dhan balse aan ku hormariyo qadar yar oo xayisiis ah. Assalamu alaikum. My name is Hussein, the director of Niels Furniture Design UK. We are known to be the leading Turkish quality and luxury furniture suppliers in the UK. And also, we are known for the good relations with the Somali community. Did you know that Niels Furniture Design has also helped Somali charities such as Ikhlas Foundation? If you want to contribute in our help to the Somali children in need, buy your furniture from Niels Furniture Design. And tell your loved ones and friends as well to do the same, because what we take, we give back. Therefore, call the number below and tell us what furniture you need and we will be happy to help. See you soon inshallah. Assalamu alaikum. shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlay arrimaha ammaanka dhaqaalaha iyo dibadda. sida warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga ayaan Cusmaan Xirseyn. kulankii khamiislaha ee golaha wasiirada oo maanta ka qabsoomay magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn waxa warbixin lagaga dhageystay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kaasi oo ka sheekeeyay howlgallooyinka lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka wadaan magaalada Muqdisho isla markaasina lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho. qodobada sidoo kale laga hadlay ayaa waxa kamid ahaa ammaanka, arrimaha dibadda iyo sidoo kale dhaqaalaha. markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta isagoona ka warbixiyay waxyaabihii kulanka ka soo baxay. waxa markaa warbixinaha ugu muhiimsanaa oo laga hadlay markii ugu horeysay waxa la wareystay oo warbixin laga wareystay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Cabdullaahi Sanbalooshe. waxaana laga wareystay howlgalladii amniga ee lagu sugayay ee gobolka Banaadir. waxayna bilaabmeen howlgalladaasna waxa loogu magac daray nabad ku soom nabad ku afur. marka waxayna bilaabmeen sidaynu wada ogsoonahay 22kii wuxuu sheegay inay bilaabmeen ama sidaynu ognahay ay bilaabmeen 22kii May degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan bay ka bilaabmeen. waxa uu markaa taliyuhu uu warbixinta ku sheegay intii ku dhimatay 7 marxuum buu sheegay. waxa kale oo la qabtay 2 nin oo isqarxinayayna waa la qabtay, iyagana waa la qabtay. magaalada waxa laga soo galaa sida uu noo sheegay maaragtay taliyuhu 12 jid waa la xidhay intooda badan waana lagu guuleystay amniga magaalada. marka oo si fiican baa loogu guuleystay sidaynu wada ogsoonahay. warbixintaas oo aad iyo aad u dheer oo uu ka hadlay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waa waynu u jeednaa waxqabadka fiican ee laga qabtay gobolka Banaadir. inaga laftigeena aragnay. marka 12 jid intooda badan waa la xiray. waxa jira jidad yar oo kale oo aan ahayn jidad oo laga soo galo kuwana iyagana waa la qorsheeyay sidii loo xiri lahaa. marka Sanbalooshe arrimahaas ugu muhiimsanaa oo uu ka hadlay. waxa kale oo meesha ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Mudane Yuusuf Garaad. waxaanu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa qorshaha
waxa ugu muhiimsanaa qorshaha iyo qaabka wax ka bedelka shaqada wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirada iska fadhiya wadamada marka Yusuf Gareed waxa kale oo ka hadlay oo iyagana ugu muhiimsanaa sharcigii arrimaha dibadda ayuu ka hadlay oo aad iyo aad loo falanqeeyay oo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo sharcigaas oo hore loo baasgareeyay oo baarlamaanku baasgareeyay marka in lagu shaqeeyo isagana waxaan ku waa la isku afgartay oo la raaco maadaama sharcigan hore loo baasgareeyay marka waxa kale oo iyaduna meesha ka hadashay Maryan Qaasim waa wasiirka waxa weeye ayaa warbixin laga dhageystay wasiirka warbixin ku saabsan socdaalkii ay ku tagtay magaalada Baydhabo iyo Waajid iyo Doolow warbixin ayay ka siistay golaha wasiirada warbixintaas oo maaragtay iyaduna aad iyo aad u wanaagsanayd baaya boqol waxay sheegtay markii hore ee ay tagtay inay aad iyo aad u kululayd oo maaragtay ay kuleyl badan uu ka jiray magaaladaas laakiin hadda uu maaragtay kuleylkii uu ka jabo Ilaahay uu maaragtay roob noo daastiyay laakiin ay dhibaatadii wali taagan tahay Waajid waxay sheegtay waa magaalo go'doonsan bay tiri oo meel ay wax ka soo galaan aanay jirin inta badan oo in loo gurmado u baahan waxa kale oo warbixin laga dhageystay guddi hoosaadyadii noqonaya hindisa sharciyeedka diyaar noqonaya 5 July 2017 ee la rabo in baarlamaanka la horgeeyo oo ay ka mid yihiin hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada runta iyo dib u heshiisiinta qaranka sharciga dawladda hoose xeerka dhisidda guddiga muftida sharciga badroolka sharciga beeraha hindisa sharciyeedka isgaarsiinta hindisa sharciyeedka golaha xirfadlayaasha caafimaadka hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa hindisa sharciyeedka badda hindisa sharciyeedka shirkadaha company law hindisa sharciyeedka dambiyada kufsiga iyo sexual offensive bill wax ka bedelka sharciyada kalluumaysiga si loo waayeedka nidaamka hay'adaha samafalka dib u eegista sharciga warbaahinta iyo hindisa sharciyeedka waxbarashada waa hindisa sharciyeedka diyaar noqon doona 5 July 2017 ee la rabo in baarlamaanka la horgeeyo ayaan Cismaan Soomaali Cable magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland waxa uu walaac ka muujinayaa shubambiyooda ka jira deegaanada Soomaaliland inuu saameyn ku yeesho doorashooyinka sida warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Faisal Fifa oo Hargeysa nooga soo warama Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha aqalka golaha odayaasha guurtida Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidyaanka kula hadlayay xarunta aqalka baarlamaanka ay wax walaac xoogan ka muujiyeen in doorashooyin xilligan la gali karo iyo in kale isagoo tilmaamay inay adag tahay xaaladda xilligan soo wajahday shacbiga ku dhaqan gobolka Togdheer iyo gobolada bariya dalka qayb ka mid ah ee la xidhiidha shubambiyoodka waxaanu Ilaahay uga rajeeyay inuu shacbigaasi ka dulqaado xaaladdaasi ay galeen isagoo ugu baaqay hay'adaha caalamiga xukuumadda iyo shacbiga bayna si weyn uga qayb galaan sidii shacbigaasi looga saarnaata bixin la marxaladda adag ay galeen waxa weeye Ilaahay naga qaado xarunka Ilaahay naga kor qaado dawladdiina sida aad tidhaaheen iyo dadweynaba gurmay taydina ma ka daba tagtaan inta halka ay joogtaan oo gurbataan marka Ilaahay bay waynu ducaynaynaa Ilaahay cudurka haynaga qaado Ilaahu ma qaadi karo naga qaado hay bulshadu ma intay qabteen baaban yarayn waa ordaysaa cudurka gaabinina wey doorashadii ma dhowa inta ka horeysaanu Ilaahay ka baryayna inuu naga qaado هذه برشة يقول تويس إن شاء الله حبينا قواري ما يانا دارم كعينه إن شاء الله نقارسين ميس إلهي نقارسين معي يقول ولي عذر كاسو ترد ورشة قري مينا إن شاء الله دق لهم نوغا dhanka kalena waxa islaarintan walaac xoogan ka muujiyay mudanayaal ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliland in aynu dad ahaan ummad baynu nahay qaran baynu nahay dawlad baynu leenahay golayaal qaran baynu leenahay shicib wanaagsan baynu leenahay oo iscaawiya sidii abaarihii baynu isku taakulaynay ee aynu uga hortegaynay masaa'ibka dhaca tii abaaruhu kala tanna inaynu sidii oo kale shicib iyo dawladba inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno oo aynu ka hortagno oo inta aanay waxyeeladeedu aanay faafin aynu si wada jira
aynu uga hortagno ilaahay ka rajeynaya waxaanu ka baryaynaa in ilaahay inaga joojiyo cudurka imika ka soo yeedha meelaha la sheegayo itixaan baynu rabaaniya bayna haystaa marna abaar bayna haysataa markuu roobku inoo daayna waa haddii shubanbiyoodku inagu ka dilaacay wadankii xildhibaankaa sheegay wuxuu shubanbiyoodkaas wuxuu dhaqshoon wasakhdii tiilay ee aan la gubin intii aan roobku soo dayin shubanbiyoodka ka dilaacay gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid ah gobolada bariya Soomaaliland ayaa xilligan waxa uu ku soo beegmaya xilli bulshadu ay ka soo kabanaysay abaar baaxad ballaaran oo Faysal Maxamed Aadan Faysal TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa. shirkii golaha wasiirada ee maamulka Galmudug oo shir gudoominayay madaxweynaha cusub ee dhawaan la caleemo saaray Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta ka dhacay xarunta maamulka Galmudug iyadoo looga hadlay arrimaha abaaraha iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha wasiirada maamulka Galmudug. Faafahinta warkaasi Axmed Cabdisalaam Khaliif ayaa nooga soo diray magaalada Cadaado. kulanka khamiislaha ee golaha wasiirada maamulka Galmudug ayaa waxaa maanta shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf sanadii markii la doortay. kulanka ayaa waxaa looga hadlay abaaraha ka jira deegaanada Galmudug iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee wasaaradaha maamulka Galmudug. waxaana markii uu soo idlaaday warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan Musagowa wuxuuna ka warbixiyay ujeedka kulankan. waxaan maanta isugu nimaday halkan inaan warbixin idinka siiyo shirkii golaha wasiirada oo ka dhacay xarunta kumeel gaarka ee madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug Cadaado taas oo ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo in badan oo xubnaha golaha wasiirada ah. kulankaas oo looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xagga amniga iyo adeegyada wasaaradaha Galmudug ay siiyaan deegaanadooda iyo habsami u socodka howlaha sida ay isugu xireen ama ay isugu duuban yihiin. halkaas waxaa warbixino badan ka soo jeediyay dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo hanaankooda waxqabadka iyo meelaha ay wax marayaan. inta ka bacdina waxaa la isla gartay oo madaxweynuhu uu sheegay in la dardargeliyo howlaha wasaaradaha isla mar ahaantaasna shuruudaha ama waxyaabaha ka dhidhiman la soo buuxiyo. kulanka dambana aan isugu nimaado iyadoo warbixino dhammaystiran oo qoraal iyo dhihidba leh intaas in la isugu yimaado. sidoo kale waxaa laga hadlay xaaladda nololeed ee Galmudug waxaana la isla soo qaaday in roobabkii gu'ga ee ka da'ay Galmudug inay ahayn kuwo aan ku filnayn goboleedka isla mar ahaantaasna dadku ay ku jiraan xaaladii abaarta. sidaa darteed shirka golaha wasiirada waxaa ka soo baxay baab aan u jeedinayno dhammaan hay-adaha caalamka ee ka howlgala arrimaha bini'aadanimada iyo guddiga gurmadka abaaraha ee qaranka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhammaan inay fiiro gaar u yeeshaan Galmudug inaanay helin roobabkii gu'ga ee ku filnaa ee lagu bixi lahaa dad iyo dunyaba. sidaa darteed xaaladdu waxay taagan tahay gurmadkii abaaruhu inuu sidiisa u taagan yahay. sidaa darteed waxaan cod dheer aan ku gaarsiinaynaa hay-adaha ay khusayso arrimaha bini'aadanimada dowladda federaalka iyo guddiga gurmadka abaaraha inay fiiro gaar u yeeshaan gurmad degdegana ay la soo gaaraan dowlad goboleedka Galmudug daafihiisa kala duwan oo dhan halkaasoo dadka iyo dunyadu wali ay ku jiraan xaalad abaar. Axmed Cabdisalaam Khaliif Somali Cable TV magaalada Cadaado. maalgashi iyo sidoo kale kobac dhaqaale ayaa laga dareemayaa deegaanada hoos yimaada gobolka Banaadir gaar ahaan deegaanka Garas Baalley sidoo warbixinta warkaasi ku eegayo wariyahayaga Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali oo deegaankaasi booqday. deegaanka Garas Baalley oo ah deegaan curdun ah iyo dhul carra cusub ayaa sameynaya kobac dhaqaale sanadadii ugu dambeeyay sida dhismayaal cusub, xarumo caafimaad, warshado, beero casriya iyo xarumo jaamacadeed. maalgashiga ugu badan waxa uu deegaanku uga imaanayaa dhanka ganacsatada Soomaaliyeed oo horumar ka sameynaya dhanka maalgashiga. halkani waa warshad weyn oo lagu magacaabo Blue Flag oo shiida galneyda soorna u bedesha. warshada oo aan gudaheeda ku soo wareegnay ayaa ugu dambeyn waxa iga warbixiyay qaabka ay u shaqeynayso mid kamid ah howlwadeenka Blue Flag. horta warshada waxay ku taalaa deegaanka Garas Baalley amba degmada Garas Baalley. warshada magaceedana waxa la yiraahdaa Blue Flag. qorshaha aan ka leenahay warshadan waxay tahay in aan soo saarno galley inaan u bedelno soor amba bulendo sida Soomaalida ay u taqaano. marka soortaas waxaan rabnaa in aan wadanka oo dhan ay ku baahdo gaar ahaan magaalada Muqdisho haddii aan maxay ahaydo ii sheeg aan dabooli karno baahida wadanka ka jirta.
marka waa galley waxa aan soo saarayno hadda qorshahayna koowaad waa galley in aan soor aan ka dhigno warshadaha ka sokow waxaa jira dhismooyin cusub oo iminka laga hirgelinayo gudaha deegaanka Garas Baalley inta aan ku guda jirnay socdaalka deegaanka Garas Baalley dhagahaynu ma aysan maqlin dhawaqa xabadda balse waxaan maqlaynay dhawaqa buruska oo ah mid dhismo muujinaya halkani waa beer kamid ah beeraha qaabka casriga ah loo maalgeliyay waxaana ka soo go'aya dalag qudaar u badan gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda iyo ammaanka deegaanka Garas Baalley Cali Xasan Cali ayaa isagu nooga warbixiyay ugu dambeynna horumarada degmada ay sameysay iyo waxyaabaha horseedka u ahaa Garas Baalley deegaankuna ma aha deegaan yar waa deegaan weyn oo degmooyin badan ilaa iyo heer gobol xuduudyada leh deegaanku wuxuu sameynayaa horumar aad iyo aad u tiro badan waxaan soo aragnay warshadooyin meela lagu sameeyo dalagyada oo ay leedahay jaamacadda Samsam deegaanku 2006kii iyo 2007kii sidoo maanta yahay ma uusan ahayn bacdallah markii aan dadaalo badan sameeynay ee aan isku daynay inaan isku tashanno deegaankuna uu noqdo deegaan u dhigmi kara ilaa iyo heer degmo garan kartaa degmo markii la yiraahdo wax dhow ma ah loo baahan yahay in la helo ilaahi kaabayaalkii dhaqaalaha oo la helo sidii bulshadii oo kale isdhexgal bulsho waa in la helaa sidii degmadii oo kale waa in la helaa saldhigi waa in la helaa hor dhan walba oo amaankii xagga ammaanka markii ammaanka la helo ka bacdi qofku wuxuu ku kalsoonaan karaa investment wuxuu sameyn karaa markii ammaanka uu kalsoonaado oo ogaado heerka uu yahay ammaanka oo naftiisii oo heli karo ammaan ku filan oo wuxuu sameyn karaa in deegaankaasi horumar uu sameeyo investment lagu sameeyo la maalgashto deegaanka Garas Baalley waa deegaan dhaqaalihiisu aad u badan yahay canshuur fara badan ka soo gasho gobolka ayaa iminka wuxuu hiigsanayaa inuu u xubsiibto degmo taasi oo ay maamulka deegaanka Garas Baalley dadaal xoogan ugu jiraan Abdicays Cabdullaahi Maxamed Abdicays Riil Somali Cable deegaanka Garas Baalley Muqdisho kulan lagu soo dhaweynayay Maxamuud Cabdullaahi Israaji oo ah wakiilka marxuum wasiir Cabbaas Cabdullaahi Israaji ayaa wuxuu ka dhacay wadanka Mareykanka wariyaha iyaga Maxamuud Ilyadayn ayaa warbixintaasi noo soo diray dhalinyaradan ku soo barbaartay xiriyaha qaxootiga dalka Kenya ee Dadaab kuwaas oo kala ah Ifo Xaga Dheer iyo Dhagaxley ayaa isugu yimid kulan ay ku wada afureen oo lagu maamuusay soo dhaweynta saaxiibkood la soo koray Maxamuud Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ka soo laabtay safar uu ku gaaray dalka Soomaaliya kadib markii walaalkiis marxuum wasiir Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji si xaq darro ah ay ugu toogteen magaalada Muqdisho madaxtooyada horteeda ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya kulankan lagu soo dhaweynayay Maxamuud ugu horeyntii waxa furay Nuur Cabdi Nuur waxa uu ka hadlay ujeedada kulankan qorshaha ama programkan maanta meesha isugu nimid qof walba naga mid oo og yahay waxa uu yahay soo dhaweynta walaalkeen Maxamuud Cabdullaahi Siraaji asaga oo ahaa walaalkii Allah u naxariistay marxuumkii wasiir Honorable Cabbaas Cabdullaahi Siraaji fariintayadu iyo message-keegu kullu waa cad yahay waana wax cad oo aan kulligeen ognahay anoo ku hadlaya magaca dhammaan dhalinyarta reer Dadaab refugee camps waxaan halkan baaq uga direynaa dawladda federaalka Soomaaliya annagoo ka codsanayno inaan helno cadaalad rasmi ah dhibaatadii loo geystay walaalkeen Cabbaas Siraaji Ilaah u naxariisto cadaaladda ama justice-ka loo helo Cabbaas waxay sabab u noqon doontaa inay dhiirigeliso dhammaan dhalinyarta reer Dadaab ama dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan baaq u dirayaa dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiibkay walaalkay iyo walaalkay kale oo qaaliga prime ministerka Cali Khayre waxaan leeyahay meeshan waxaan isugu imaanay aan ku mideysanahay haddii aan nahay aqoon-yahanadii ganacsatadii dhalinyaradii ku soo barbaartay wax ku soo baratay ku soo kortay xarooyinka Dadaab waxaan leenahay ma seexanayno oo hurdana ma qabanayso oo buuq iyo qaayl ma joojinayno ilaa cadaalad dhammaystiran laga hor keeno gacanta ka xaq darneed ee dishay cid walba ku xaqleed
dilka ruux muslini waa dembi aan la iska dhaafayne dilka ruux muslini waa dembi aan la iska dhaafayne dunuub weeye soomaaliyay daadashada dhiigu oo waa waxaa dalkeeniyo ku dhacay dagaaladeeniye qodobka labaad ee aan doonayay inaan gudbiyo waa dadkii gardarrada Cabbaas ku dilay iyo inta laga yaabo inay qabyaalad u garab taagan yihiin waxaan leeyahay waa dadkaas dilay iyo inta ku faraxday garab taagan iyo qaxootigii ummadii qaxootigii ee oo idil oo iska hormaaday waxa haddii Cabbaas justice-ka u raadinayno aan ka weyno dawladda ka weyno ilaa iyo Mareykan iyo White House iyo Trump la gali isaga u tagayna fariinta marka aan dawladda u diray hadda waxa weeye oo raba inay iga gaadho haddii dadka qaarkood ay isla yihiin waa sidii kuwii la dildilayeen dhash laga sii la iska dhaqaaqay iska dhamaaday arintaas meesha kama jirto anagu ma harayno haddii ay dhacdo in adduunka ku harno oo waxba weyno oo nala dulmiyo oo gardarrada ay ku dhamaato eedoon ogahay tii rabbi marnaba inaan ilaawin laakiin tii rabbi baan xooga saaraynaa eedaan dib ugu soo laabanayna ducaana sameynayna habeenkii baan u tukanaynaa waan u soomaynaa ma aqaan wuxuu igu xil saaray inaan soo dhaweeyo ninkii Maxamuud ahaa laakiin malaha wuxuu isleeyahay wax badan bay isla soo mareeno waxa aniga aanan Cabbaas isla soo marin baan Maxamuud isla soo marnay marka Maxamuud Cabdullaahi Siraaji soo dhawaa walaal stage-ka ku soo dhawaa Cabbaas ilaahu naxariis Allah yarham ilaahi jannada ugu bishaareeyo Cabbaas justice-ka oo rabno waa different kind of justice shakhsiyan the kind of justice oo raba Cabbaas waa dhowr nooc mid waa midoo ku dilay iyo wixii fal ku lahaa in la soo wada qabto dawladda ay u taalaamida justice-ka kala Cabbaas qof walba meeshaan fadhiyay Soomaali weyn ayuu ka rabaa Cabbaas dream buu lahaa dreamka Cabbaas uu lahaa waxay ahayd Soomaaliya nabad ah Soomaaliya degto Soomaaliya barwaaqe Soomaaliya dadkeeda intay soo noqdeen maxaa la jiray with dignity they can hold their head up ay dhihi karaan Soomaali baan dream noocaas uu lahaa marka Cabbaas waa naga tagay Allah yarham laakiin annaga joogno wuxuu qabanayay iyo maxaa la jiray wuxuu qaban kari lahaa qaban doona Ilaahay dumayrin Cabbaas Soomaali dhan buu ka dhintay dadka Soomaaliyeed dhammaantood waxa ay ka naxeen faldambiyeedkii foosha xumaa ee dilkii loo geystay wasiir Cabbaas Allah u naxariistay 3 bisha May si kastaba isku soo duube waxa ayaan darro ah yaxyaxna leh ilaa iyo iminka in dawladda Soomaaliya aysan cadaaladda u keenin cidna dadkii dilay Cabbaas Maxamuud Dulyadayn Somali Cable dalka Mareykanka gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo duqa magaalada Ceelgaabo ayaa waxay xariga ka jareen carwo cusub oo lagu soo bandhigi doono qalabyada xafiisyada iyo guryaha sida warbixinta warkaasi noogu soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Daraawish oo nooga soo warrama Ceelgaabo kusimaha barasaabka gobolka Sanaag Laalay Axmed Jaamac iyo maayarka degmada Ceelgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa maanta waxay si wada jir xariga ka jareen carwada lagu iibin doono qalabka qurxinta guryaha iyo xafiisyada ee guri bila oo laga hirgeliyay magaalada Ceelgaabo waxaana munaasabadii xariga jarista carwadan cusub ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmada Ceelgaabo saraakiisha ciidamada madax dhaqameedyo ganacsatada culimaadudiin dhalinyaro waayeel iyo waxgarad kaleba ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay carwadan milkiilaha carwadan Cabdiraxmaan Dhoore carwadani waa carwo iibin doonta qalabka guryaha iyo xafiisyadaba annagoo dadka u fududeynay safaradii ay ku aadi jireen magaalooyinka ka fogfog magaalada Ceelgaabo waana markii ugu horeysay ee laga furo oo laga hirgeliyo carwada noocaasa alxamdulillah waxaan ku soo aadnay xilli wanaagsan oo bil Ramadaan ah oo roobkii noo da'ay oo barwaaqo ah oo dadkuna nabad yahay dalkuna nabad yahay waxaan kaloo dadka ugu bishaareynaya ama ugu baaqayaa inaan u sameyn doono calaashan bisha Ramadaan aawadeeda qiimo dhimis fiican oo ay raali ku noqdaan alaabooyinka halkan aad ku aragtaan sida fadhiyada oo kale qaarkood waxa lagu sameeyay magaalada Ceelgaabo oo warshadii sameeynaysa aanu keenay si ay dadkii uga nastaan alaabtii ka soo burbureysay ee magaalooyinka kale ka soo qaadayeen
waa laga yaabaa dadku inay istiraahdaan wallaahi meeshani waxay soo kordhisay waa lacag fara badan alaabta talaana waa qaali laakiin ma aha waan u jebin doonaa way ku farxi doonaan way ku raaxaysan doonaan waxaa iyaguna dhinaca madax dhaqameedka munaasabadan hadallo kooban ka yidhi boqor maxamed boqor axmed cali iyo boqor ibraahim gacmo yare waxaan hambalyaynaynaa ciddii hawshan ka soo shaqaysay ee dhismahan samaysay gelisay kharashkeeda alaabtan la soo bandhigay inoo keentay ka fikirtay horumarka Ceergaabo waan hambalyaynaynaa waxaan leenahay waxa aad qabateen ee wanaagsan ee magaalada ku soo kordhiseen iyo dadkaba marka hore faa'iidada waxa ka doonayseen Ilaahay idinka siiyo faa'iidaha idinka siiyo marka labaadna Allah idin barakeeyo wixii aad idinka soo gala waxaan halkan u mahad celinaynaa carwada guri bila mulkiilayaasha leh dhammaantood waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wax ka dhinaa gobolka ama degmada Ceergaabo ama magaalada Ceergaabo ay soo kordhiyeen maamulayaasha shirkadaha Telesom iyo Sabco ee gobolka Sanaag Jamaal Xaaji Dhuulci iyo Maxamuud Axmed Liibaan iyo waliba xogayaha dawladda hoose ee Ceergaabo Saciid Cumar Cabdi ayaa iyagana hadalloodii waxa ka mid ahaa xoolaha waxaanu ka bixinayno kulanahay sadaqaadka ugu didaala dadka ka shaqeynaya dad Ilaahay ku xiran ha ahaadeen wax weyn way barakoobaysa waxaan u mahadnaqayaa maamulaha guri bila Cabdiraxmaan Dhoore waxaan ku hambalyeeynaa businesskan cusub runtii casriga ah ee magaalooyinka waaweyn la jaan qaaday oo ku soo kordhiyay magaalada Ceergaabo waxaan insha Allah u mahad celinaynaa Cabdiraxmaan Dhoore oo inoo furay meherada tanqaaliga ah oo ay maanta ku soo hiranayaan dad badan ama ay ku fekerayaan sidii ay u iibsan lahaayeen ugu dambeyntiina munaasabadan furitaanka carwadan cusub ee guri bila waxa hadalka isaga dambeeyay soona gabagabeeyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Gaashaanle Sare Axmed Saciid Gagaroor maayarka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo kusimaha barasaabka gobolka Sanaag Naalay Axmed Jaamac waxay daliil u tahay in aynu dhaqaaqnay oo hore u soconay oo horumar ku tallaabsanayno waxay kale oo aan arkayaa in nabadda mandaqada ka jirta lagu kalsoonaan karo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa carwadan cusub ee aad noo furtay adigoo bedelay quruxdii oo meeshii qurxiyey oo aad iyo aad ay maanta ula tarsamayso magaalooyinka kale aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay Allah ku barakeeyo waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa Cabdiraxmaan Dhoore oo inoo furay carwadan guri bila waxaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo dadka kale ee ganacsatada ay reer Sanaagna waxaan leenahay wariyaan boosasku jaanisiyada ka buuxsameen hore soo degdegay waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV magaalada Ceergaabo ilaa iyo 4 tuulo oo simaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dab la qabadsiiyay kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaal beeleedyo u dhaxeeyay dad halkaasi wada degaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa halkaasi booqday faafahinta warkaasi waa tan wariyahayaga Iqra Cabdullaahi Raage oo warbixintaasi noo soo dirtay xilli dhawaan tuulooyin hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaal beeleedyo ka dhacay dab lagu qabadsiiyay tuulooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Jamiica Misro Maqdis Kulmis iyo Busle ayaa maanta waxaa gaaray tuulooyinkaasi madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Balcad ugu horeen waxaa ka warbixiyay dhibaatada ka dhacday tuulooyinkaasi waxgaradka deegaanadaasi oo haddana maanta ayagoo wada jir ah ay noogu yimideen masiibada ku dhacday dadkan si ay aga baaraan degaan ay ugu laxawsadaan oo ay ula qaybsadaan xanuunka oo ay wixii karaankooda ay u gali karaan u galaan gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Cismaan Maxamed Xaadoole iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meydhe Makaraan ayaa iyana madashaasi ka hadlay mudana madaxweyne ku-xigeen mudana wasiir mudana gobernatore muddo laga joogo 20 casho ka hor meeshan ayaan imaaday dadkii dhibaatadan maanta indhihiina haysato tuuladan ugu yaraan waxaa dhibaata ku soo gaartay dad aan ku qiyaasay 3,000 oo qoys oo gurigooda dhammaay iyo hantida ay lahaayeen halkan ku waayay hoy ma haystaan duruuf adag ayaa jirta waxaan idinka rabaa amba dawladda Hirshabeelle dawladdiina Hirshabeelle iyo dawlad federaal iyo caalamka cid la kaashiisiin in la kaashade gurmad degdeg inaad siisiin in badan lagu soo noqdo waxa keenay in wax qabad la helo sidii wax loo qaban lahaa in maartay 24 saac maalin kasta waxa laga hadlaa sidii wax loogu qaban lahaa deegaanada dhibaatada gaartay dadkoodina ay ugu soo naqal lahaayeen si nabad ay ugu soo degi lahaayeen una soo naqal lahaayeen waxaan wada dhibaayo dadka duurka joogo
dadka dhibaatada xilligan soon ku jiro dadka dhibka gaaray wayna wada dhibaan waa la qaybsanaynaa xanuunka haya ayaan la qaybsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay in gogol nabadeed ay u fidanayaan beelahani dagaalamay waxaan sugaynaa waqti dhawaad Ilaahay ka raali noqdo in ay noo suura gasho in aan fidano marka ugu horeysa barta gogoshi nabadda si wixii dhacay looga heshiiyo markii wixii dhacay laga heshiiyay ka bacdina aan u soo jeesano bal sidii dhismihii iyo maaragtay ummadan si dib loogu deji lahay loo howlgalo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday aad ayaan ma aragtay uga xunnahay dhibaatada ka dhacday deegaankan ee dad walaalaan ay ku diradeen ay naftooda iyo maalkooda ku baabi'iyeen tuuladii ma aragtay waxaan dhex taaganahay Jaamaca Misro maqdasa asigana sidoo kale la gubay kulmisaa lamida busley asigana wax qayb laga gubay xaqiiqdii iyo deegaano kale intoodo dhibaatadu ay saameysay guud ahaan beesha caalamka ee dawladda dhaxna waxaan ka rajaynaynaa inay dhibaatadan garab nagula siiyo dhibaato state-ku ku filan yahay ma ahan laakiin annaguna gacana iskor saaramayne waxa la waxaan qaban karnaa qaban doona haddii ay raalli ka noqdo aad u mahadsantihiin wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa maanta wareegto ka soo baxday xafiiskiisa waxaa xilalka looga qaaday gudoomiyaasha degmooyinka Mahada iyo Cadale waxaana isla maanta loo magacaabay gudoomiyaal cusub Iqraa Cabdullaahi Raage ikhriladan tifiga caalamiga Soomaali Cable xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar qodobkaas ayaa daawadayaal gabi ahaan u dambeeyay warkii caalamka ee TV-ga Soomaali Cable oo idinka imaanaya studio TV-ga magaalada Nairobi warka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Umar Cabdullaahi iyo dhammaan asxaabtayga la qayb gashay waxaan idinku dhaafinaynaa dib u kulmi doono Ramadaan Mubaarak wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh